marka su'aasha isweydiinaya ayaa qofku sidii ayuu guul ku gaari karaa si fudud ayaa lagu gaaraa dhammaantiina waad gaari kartaa الله قرن نفتن واحد كويس لاحيسو سكاب وري سجانا قرنيا وحيودنا وحي كويس لاحيسنا خصوص على أيون وسو ديبي خصوصا وحنا برتين إن الرب كان عابدو قب الآذن وقمن أطوصن أين نقنو سنة آخروها إنه نتشيد ونأكسن أدو كان واحد نرشجي إنه يهم امتحان وحمر كان لو يتحمينا وأنا قسم إنه أمامكم هاد علينه هدي عارف ما لوكسيو وين المهد عليسا هدي حنستنا ولا تقسم مرتا مركادي نورش ده نقطه ويفضانسا دردن يمعانا ويلانسا وايو قلبي يا حسنوني رانا شيء لهين وهلي حدو قف انت هيلنا وحكم مقال مشهور مid kamid culimada islaamka ayaa maalmaha kamid bobig fraud ay jub roodiye galiyay markaasuu nimcadan haysanno hadii boqortooyada oganayd inuu qabsan lahayd hadda xabad roodiye qudhata iyo diido ninkaas ku sitaa waxaanu ku cunayaa wabigaas markaasuu ku leeyahay boqoradu hadii ogaan lahayd wax nimca haysanno inuu la dagaalami lahaayeen sababtoo annaka ma la muhaysan adduunyada ma haysan laakiin waxa isku qudhata waxa xasiloonida qalbiga oo qalbigiisa ay xasiloon ilaahay ayuu rumeeyay caabuday ku kalsoonaaday sababtoo noloshu xatay ayuu arkay waanu ogyahay hadafka noloshu leedahay ayuu arkay sidaas darteed ayuu wadadii toosan u haystay farxadu ma waxa ka maqan ee waxa haysatid iyo sida dareemisid kaas ayaa waxa qofka farxad galiya marka in madaxweyne noqdo guul ma ahay ee waa mas'uuliyad dhaxdaas ka saartay in lacag badan la helaana guul ma ahay ee waa xil ku saarmay laakiin ugu ama madaxweynaha ama taajiraha ama miskiinaha waxa ku waajiba in Ilaahay raali geliso hadad madaxweyne cadaalad iyo diin iyo dhaqan iyo wanaag wadatatay وجولسانسان مدحنا عادلة وحكم دي تضبط تناد هرسانية حتى تناد اليراء وعبادستا وجولسانسان إسنا حكم دي هاي قوة تناد هرسانية ما نتفيانا قفر اليراء وعبادة الله كبر باري تضبط تناد هرسانية أي كم دي هاي وحي أنت يلعب مال كاسو قارينا وشوك محلنا أذو مدحنا أي دب قبسان كرتا أذو تاجر أهنا دب قبسان كرتا أذو مقع يماننا دب قبسان كرتا أذو فقير أهنا دب قبسان كرتا intuba dibtu wala socon kartaa guushuna sidoo kale wala socon kartaa marka guushu iyo ku daradu kuma xidhna wax gacantaada ku jira iyo magac iyo maamuuska aad leedahay intaba kuma xidhna wuxuu ku xidhan yahay inta rabbiga xidhan la leedahay inta nolosha macnaheeda fahmaysid iyo adduunyada xil ugu keenay hadduu maanta qof socdo oo uu dhaho waan iska soconaya aakhirka uu daalaya marka maxay faa'iiday marka dad hadaf leedahay oo tiraama halkaasan gaariyo barbaro kale gaariyo mabruuc kale gaariyo tiraadid wasta marka hadafkaaga wala garan hadafkaaga uu caadi yahay nolosha dad hadafka yeelan weydo 7 sano way dhamaanaysaa wayna rabbiga raali geliso jannada raadisi annana ka badbaadid hatta inta garan weydo nolosha qiimo ma leh wax kasto agtaada yeelana qiimo ma leh dib u bad ku jirta ibn aadak waxay garan waayeen wax lagu qiimeynayo qiimihii dhabta ahaa gaari guri qurux badan family qurux badan taas ma nolosha dhabta manaha mid wax lagu qiimeeyo qofkii intuu gaari leeyahay intuu guri leeyahay qiimihiisu maaha waa intuu ilaahay soo dhow yahay iyo rabbigiisu dhow yahay in qiimihiisu leeyahay taas waa marka akhriin leemadana wuxuu anfacdaa adduunka inta la joogana qofka dhibaatada ka ilaalisa marka su'aasha isweydiinaya qofku sidii ayuu guul ku gaari karaa si fudud ayaa lagu gaari dhammaantiina waad gaari kartaa ta lagu gaarayna waxa weeye in jidkii Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam aad raacdaan dadka caayin ha xamanin hamaagin akhlaaqda hagaaji bini'aadanka isku dhaqan qofka ku xoog weynta ku istaagin salaadiis kadii cibaadaadka ilaali waxa soo qof kasta oo sameyn kara ma wax lacag u baahan manaha wax dhib u baahan magacna ma baahna waa in qof kasta awoodi karo marka qof kasta uu gaari kala guush Maxamed wuxuu qof kasta jannadu galiyay illa qofkii diiday mooyaane wiya diiday asxaabtu markaa dhaheen waxa uu yiri marka nabigu ninkii raacaniga janna ayuu galiya ninkii diidana naar buu galaya marka inaad ku waristo kuma xidhno inaad weyn tahay iyo inaad yar tahay kuma xidhna lacagaas inaad haysan sidoo kale kuma xidhna inaad magac leedahay in kale kuma xidhna cilmi badan tahay inaad cilmi badan lahayn waxa quraata ku xidhan tahay wadada raacdo wadada sarada mustaqbalka raacin mise wadada kale wadada xagga ilaahay qabanaysa adigoo lacag leeyahay iyadoo meel lahayn baad sharaf lahayn oo mari kartaa xaggan hartana inta baa lagu mari karaa labada wadada raacayso in kala doorano quraata ay guushu ku xidhan tahay